madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay isbeddelkii ugu weynaa ee siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan bariga dhexe muddo 10 sano ah. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu la wareego marinka Gaza. Donald Trump ayaa laba jibaaray soo jeedinta uu ku doonayo in dib-u-dejin loogu sameeyo guud ahaan shacabka reer Falastiin ee Gaza, gaar ahaan dalalka Masar, Urdun iyo dalal kale. Trump ayaa sheegay in Gaza la hormarin doono si ay dadka caalamku ugu noolaadaan. Isagoo arrintan ka hadlayana waxa uu yidhi, waxaan ku dhisi karaa lacag aad u badan oo ay bixinayaan dad kale, wadamo aad hodan u ah, waxayna diyaar u yihiin inay bixiyaan haddaynu wax u dhisno reer Gaza oo mid ka mid ah dalalka Urdun iyo Masar loo raro. Xaalku wuxuu noqon doonaa mid xal loo helay. Waxa uu sheegay in reer Gaza aanu u hayn dooq kale oo aan ka ahayn inay halkaas isaga baxaan. Masar iyo Jordanna ay ku khasban yihiin inay qaabilaan dadka ka soo baxaya Gaza. Madaxweyne Trump wuxuu siiyey Carabta kala doorasho ah ugu taageera inaan qaato Gaza oo daanta galbeed siiyo Israa'iil. Haddii aad diidaanna waan dagaalami doonaa. Trump wuxuu meesha ka saaray inuusan ku dhaqmi doonin wax diblomaasiyada oo ah waxa ay doonayeen Carabtu haddii xataa dhulka Falastiin la qaadanayo in lagu dhaqmo. Sidoo kale wuxuu si cad ugu sheegay inaysan jiri doonin wax warqada oo la isdhaafsanayo, taasoo meesha ka saaraysa inaysan ku sii jiri karin madaxda Carabtu xaaladii ay ku gaban jireen ee warqadaha cambaaraynta oo keliya. Qorshahan oo warbaahinta Mareykanka qaarkood ay wax ka qoreen ayaa lagu macneeyay inuu yahay qorshe laga soo baaraandegay ayna qayb ka yihiin Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo dalal kale. Waxaana la sheegay inuu yahay qorshe Mareykanku uu garwadeen ka yahay oo lagula tartamayo qorshaha Shiinaha ee Silk Road. Qorshahan oo la shaaciyay sanadkii 2023 ayaa loogu magac daray India Middle East Europe Economic Corridor oo loo soo gaabiyo IMEC. waxaana uu jid ahaan tareen ahaan isugu xiraya Yurub, Israa'iil iyo bariga dhexe oo dhan ilaa iyo India. Si taasi u suura gasho waa in Falastiiniyiinta Gaza meesha laga saaro. Ay dadka qaarkood arrinkan ku macneeyeen waana sida uu ku bilowday qorshaha baabi'inta iyo duminta Gaza. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka soo horjeestay qorshaha Donald Trump ee ah in shacabka ku nool Gaza ay isaga baxaan halka ayna la wareegayaan ciidamada Mareykanka. Waxaa arrintan ka falceliyay oo diidmacad ka muujiyay dalal ay ka mid yihiin China, Russia, Brazil, Spain, Belgium, Egypt, Jordan iyo kuwo kale. Marka laga yimaado caalamka, Mareykanka dhexdiisa ayaan xitaa laga aqbalin xilli qaar ka mid ah wakiilada aqalka cad ay qorshaha Trump ku tilmaameen inuu yahay mid kaftan ah iyo waxaan caqliga galayn, iyagoo sheegay in Trump uu wali ku dhow yahay qorshahan haddii lagu dhaqaaqana bariga dhexe uu holci doono jabka ugu xunna ay la kulmi doonaan ciidamada Mareykanka. Qorshaha Trump waxaa sidoo kale wali ku tilmaamay qaar ka mid ah dowladihii sida weyn u taageersanaa Israa'iil ee dagaalka Gaza isdifaac nafeed ku tilmaami jiray sida Germany, Faransa iyo England. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa ka soo horjeestay qorshaha Trump ee ah in Falastiiniyiintu ay ka baxaan Gaza. Ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin in Falastiiniyiintu ay ka baxaan Gaza, taasoo ah mid la baabi'iyay. Waxaana uu sheegay taa beddelkeeda in loo baahan yahay in Falastiiniyiintu ay deegaanadooda nabad ugu noolaadaan. Shabakadda Axios oo ka soo baxda Mareykanka ayaa ka soo xigatay saraakiil ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka inay la yaabeen qorshaha Trump, iyadoo warbixintu ay sidoo kale sheegtay inuu Trump diyaarinayo qorshahan 2 bilood oo u dambeysay kadib markii uu waayay wax qorshe ah uu ku wajaho xaaladda Gaza. Wuxuuna soo bandhigay hindisahan waalida looga arkay dunida.